عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسم ميلكتا joogtaan insha Allah muuqaalkan waxaynu kusoo qaadan doonaa barnaamijkii barashada daawooyinka. qaybtan waxaan ku sharxi doonaa daawooyinka la isku yiraahdo antibioticska ama se waxa loo yaqaano qalajiyaasha. daawooyinkan la isku dhaho antibioticska inta badan waxa loogu yeeraa antibacterials. waa daawooyin loo isticmaalo ama lagu daaweeyo in hoos loogu dhigo koritaanka bakteeriyada soo gashay jirka. daawooyinkan antibioticska laguma daweeyo mana loo isticmaalo caabuqyada ama infekshanada ay keenaan fayraska. markii ugu horeysay ee antibiotic la soo saaray waxay ahayd sanadii 1928. ninkii soo saarayna wuxuu ahaa Alexander Fleming. wuxuuna soo saaray daawadii ugu horeysay ee la dhaho penicillin. sidee ayay u shaqeysaa daawooyinkan la isku yiraahdo antibiotic drugs ama se qalajiyaasha? inta badan qalajiyaashu waa daawooyin u baahan qofka inuu u soo qoro dhakhtar oo qofka hadii uu iskiis iska qaato waxay u keeni kartaa cilado caafimaad. waxaa muhiim ah daawo kasta oo antibiotic ama qalajiye ah qofka inuusan iska isticmaalin ama uusan iska cunin isagoo aan la tashan dhakhtarkana aanan ka soo qaadanin wax markaas idan ah. sababtoo ah daawooyinka qaar iyaga waxay leeyihiin saameyn caafimaad oo qofka hadduu si khaldan u isticmaalo waxay u keeni kartaa cilado caafimaad. haddaba sidee ayay u shaqeysaa daawooyinkan la isku yiraahdo antibioticska? qaybta koowaad waxay u shaqeysaa laba qaybood oo kala duwan. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa bactericidal antibiotics oo shaqadeedu waxay tahay in ay gabi ahaan bedisho oo ka takhalusto bakteeriyada jirka soo gashay. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa bacteriostatic waxayna joojisaa ama ay hakisaa bakteeriyada jirka soo gashay inay markaasi jirkii meelo kala duwan ama meelo kale inay kusii faafto oo kusii korto. sidee loo qaataa daawooyinkan markii la isticmaalay ama xagee laga qaataa daawooyinkan markii la isticmaalay? ugu horeyn daawooyinkan markii aad qaadanaysid qaabka aad u qaadanaysid iyo sida aad u isticmaalaysid waa inuu markaasi ku soo sheegaa dhakhtarka ku soo qoray oo uu ku soo sharaxaa qaabka aad u isticmaali lahayd. daawooyinkan waxaa loo isticmaalaa qofka inuu ka qaato afka qaabka loo yaqaano oral ama se inuu ka qaato xididka qaabka loo yaqaano IV ama se intravenous. ama afkaad ka qaadan kartaa ama xididka ka qaadan kartaa hadba waxay ku xiran tahay xaaladaadu sida ay tahay ama se dhakhtarka ku soo qoray qaabka uu kuugu markaasi sharaxay ama kuugu talagalay inaad u qaadatid. haddaba daawooyinkan antibioticska ama qalajiyaasha waxaa jira qaybo fara badan oo ay u kala baxaan ama groups ay u kala baxaan. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa penicillin. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa tetracycline. qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa cephalosporin. qaybta afraad waxaa loo yaqaanaa lincomycin. qaybta shanaad waxaa loo yaqaanaa microlide. qaybta lixaad waxaa loo yaqaanaa glycopeptide. qaybta toddobaad waxaa loo yaqaanaa aminoglycoside. qaybta sideedaadna waxaa loo yaqaanaa sulfonamides iyo qaybo kale oo fara badan. dhammaan qaybahani ay u kala baxdo daawooyinka antibioticska qayb walba waxa ay leedahay markaasi daawooyin kale ama noocyo kale oo markaasi hoos imaanaya iyada. haddaba saameyn intee la eg bay yeelan kartaa daawadan haddii aad iska qaadatid ama isagoon dhakhtar kuu soo qorin? daawooyinkan waxay leeyihiin cilado caafimaad oo tiro badan haddii qofka uu iska qaato isagoon dhakhtar u qorin ama uu si khaldan u qaato ama qaabkii loogu talagalay uusan u isticmaalin. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad ka taxadirtid aad kana feejignaatid. haddaba daawo kasta waxa ay leedahay wax loo yaqaano side effect ama saameyn caafimaad. daawooyinkan antibioticska qofka markuu qaato ama side effectiga ay leeyihiin waxaa kamid ah walow daawo walba ay side effect gooni leedahay balse daawooyinkan qofka wuxuu isku arki karaa xoogaa labo ama se madax wareer walow aysan badnayn. qaybaha aynu soo sheegnay ay u kala baxaan antibioticska qayb walba waxay leedahay daawooyin fara badan oo markaasi hoos imaada iyo qaabab kala duwan oo loo isticmaalo. insha Allah muuqaalada soo socda baynu ku sharxi doonaa qayb walba daawooyinka hoos imaada iyo weliba xanuunada loo isticmaalo. muuqaalkani maanta intaasuu ka yahay. haddii aad waxun ka faa'iiday la wadaag asxaabta. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. haddii aad horey noola joogteen laagta nagu dhiirigeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.